kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah shirka dalalka G7 ee ka socda waddanka Canada oo u muuqdo mid ay xubnuhu aad ugu kala aragti duwan yihiin ururka Taliban oo in ku dhow 50 askari ku dilay weerarro uu ka fuliyay dalka Afghanistan iyo diyaargarow dhinaca amniga ah oo ka socda dalka Singapore halkaasoo ay ku kulmi doonaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi aan ku bilownay shirka wadamada G7 la isku yiraahdo oo jimcihii ka furmay magaalada Quebec ee waddanka Canada ayaa la soo gabagabayn doonaa gelinka dambe ee maanta shirka waxaa hareeyay khilaaf ka dhashay canshuurta dheeraadka ee uu Mareykanku ku soo rogay wadamada Canada iyo waliba midowga Yurub wariyaha Canada nooga soo warrama Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxda toddobada dal ee ka qaybgalaya ay dhex taalo xurguf dhanka dhaqaalaha ah waxaana jira cadaadis madaxweynaha Mareykanka Donald Trump lagu saarayo inuu ka noqdo canshuurta uu ku soo rogay naxaasta iyo birta aluminiumka ee laga dhoofiyo dalalka Canada iyo midowga Yurub shirka ayaa sidoo kale looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin deegaanka iyo ammaanka kulan ay yeesheen ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo dhinaca iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la isku adeegsaday hadallo kulul waxayna u muuqataa inaysan wax natiijo ka soo bixin balse madaxweynaha Faransiisku wuxuu u sheegay warbaahinta in wada hadalladu ay ahaayeen kuwa toos ah oo qayaxan kasoo dhammaan dhinacyadu ay rajeynayeen in xal la helo wuxuuna hore u sheegay in haddii Trump uu madax adeego ay lixda dal ee kale ay samaysan doonaan heshiis u gaara Canada waxay toddobaadkii hore tilmaantay in laga bilaabo bisha July ee sanadkan ay 16.6 bilyan oo dollar oo canshuur korina ay iyaguna ku samayn doonaan alaabaha laga soo dhoofiyo Mareykanka khilaafkan maahan oo kaliya mid ku kooban dhinaca dhaqaalaha sidoo kale wuxuu la xiriiraa dhinaca siyaasadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu xusay in ahayd in Ruushka lagu soo celiyo golahan si looga dhigo 8 dal balse dawladda Canada ayaa ka soo horjeesatay soo celinta Ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Canada Chrystia Freeland waxay tilmaantay in Canada aanay waxba iska bedelin mowqifkeedii hore ee Ruushka 2014 looga saaray isbahaysiga dalalkan qodobada kale ee Mareykanku uu ka biyadiidsan yahay waxaa ka mid ah hirgelinta heshiiskii Paris ee la xiriira isbedelada cimilada ma kala cadda in 6 dal ay gaari doonaan heshiis u gaara oo dhinac la isaga riixayo Mareykanka iyo in Donald Trump uu dib u eegis ku samayn doono go'aankiisii la xiriiray canshuurta Xuseen Nuur Xaaji VOA Toronto dagaalyahanada Taliban ee waddanka Afghanistan ayaa laba weerar oo isxiga oo ay dalkaasi ka fuliyeen waxay ku dileen ugu yaraan 40 ciidan ah oo isugu jira bilays iyo military saraakiisha Afghanistan ayaa sabtida maanta sheegay in weeraradan oo xalay ka kala dhacay waqooyiga gobolka Kunduz iyo galbeedka gobolka Herat ay sidoo kale ku dhaawacmeen 6 ka mid ah ciidamada nabadgelyadu maamulka gobolka Kunduz ayaa sheegay in Taliban ay weerareen bar boolis oo ku taala degmada Qala Ezal jimcihii shalayto halkaasoo ay ku dileen 24 askari afayeen u hadlay gobolka Herat ayaa isna VOA-da u sheegay in ilaa 150 dagaalyahan oo Taliban ahi ay ku xoomeen bar uu leeyahay ciidanka ammaanka ee Afghanistan halkaasoo dhawaan laga dhisay degmada Zawal iyagoo ku dilay 17 askari Taliban ayaa sheegatay mas'uuliyadda labada weerar iyagoo oo sheegay in sidoo kale ay xoog ku qabsadeen baro kale iyo qalab ciidan kooxda Taliban ayaa khasaare daran gaarsiisay ciidanka Afghanistan ilaa markii uu bilowday dagaalka xilliga guga waxaana lagu soo warramayaa in ay dileen ilaa 500 oo askari bishii hore dagaalka ayaa sidoo kale galaaftay tiro ka badan 180 dadka reer Afghanistan bishii May ee ina dhaaftay arrintan ayaa imanaysa iyadoo ururka Taliban uu maanta ku dhawaaqay xabad joojin 3 maalmood inta lagu guda jiro u dabaaldega munaasabadda Ciidul Fidriga ciidamada ammaanka ee waddanka Singapore ayaa sare u qaaday xaaladda amni ee waddankaasi 2 maalmood uun ka hor shir madaxeedka halkaasi ay ku yeelan doonaan hogaamiyayaasha Mareykanka iyo waliba Kuuriyada Waqooyi hawshani waxa ay maanta oo sabti ah ka bilaabatay mid ka mid ah 2 goobood oo lagu dhawaaqay in ay dhacdooyin gaar ah oo la xiriira kulanka soo socda ee u dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo waliba hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay ku qabsoomi doonaan dhagaxyo shub ka samaysan ayaa lagu gooyay aaga Tagleen
oo la rumaysan yahay in uu ku qabsoomi doono kulamo muhiima inta u dhaxaysa 10 ilaa iyo 14 bisha Juun. aagaasi waxaa ku yaala safaaradda Mareykanku uu ku leeyahay Singapore. waxaa kaloo nawaaxiga ku teedsan hoteelo fara badan oo ay ka mid yihiin Shangri-La iyo weliba St. Regis. goobta kale ee la filayo in qayb ka mid ah kulamadu ay ka dhacaan waa jasiiradda Sentosa, waxaana halkaasi ku yaala hoteelka Cabela oo ah halka uu ka dhici doono shir madaxeedka labada madaxweyne u dhaxeeya 12 bishan Juun. iyadoo maalmo kooban uun ay inaga xigaan munaasabadda Ciidul Fidriga ayaa hay-ad khayri ah waxa ay in ku dhow 100 caruur danyara oo ku nool magaalada Boosaaso u qaybisay dharkii ay ku ciidi lahaayeen. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf. dharkan oo ay ku ciidi doonaan caruurta agoonta ah iyo weliba kuwa danyarta ah ee aan awoodin inay iibsadaan dharka ciidda ayaa waxaa iska kaashaday in loo qaybiyo dharkaasi mu'asasada Al-Nasiha Foundation oo laga leeyahay Pakistan, iyadoo loo soo wakiishay mid ka mid ah ururada dhalinyarada magaalada Boosaaso. tirada dhalinyarada dharka loo qaybiyay maanta ayaa dhammaan 78 dhalinyaro ah, kuwaas oo laga soo kala xulay kaamunka magaalada Boosaaso. maxamuud cabdiraxmaan mursal ayaan ka wareystay cidda dharkan loo qaybiyay iyo weliba cidda ku deeqday. waxaa barnaamijkan fulinaysa ama loo soo wakiishay hay-adda wadaniga ah ee Jamciyatul Xikma Al-Khayriya oo ah hay-ad samafal oo ka shaqeysa barnaamijyadan. runtii si qurux badan buu barnaamijku noogu dhacay. 78 cunug baa halkan fadhida, mid kastana waxaa la siiyey 4 shay oo mataqaanaa shaati iyo surweel iyo kabo iyo funaanad oo runtii markii la soo gadayeyna ay nala socdeen qayb ka mid ah waalidiinta. qaar ka mid ah waalidiinta danyarta ah ee aan awoodin in ubadkooda dharka ay u gadaan ayaa uga mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadatay in ubadkooda dharka ciidda loo gado. ana Shukr Cabdullaahi Xamuda waxaan u mahadcelinayaa dadkan noo eedsiiyay ilmaha yaryar, maadaama dadku ay danyar u badan yihiin ayaan awoodin inay caruurta eedsiiyaan. marka aad bay u mahadsan yihiin. ilaahay baa u deeqay dadkan. waxaa kuu sheegay hay'adda samafal intaasoo ciyaal bay wax siisay. ilaahay madaxeeda ha ka dhigo, intii soo dhiibtay ilaahay khayr ha siiyo. anigu magacayga ah Macallin Cabduladiif Cabdullah. aad bay u mahadsan tahay Jamciyatul Khayriya iyo Al-Nasiha, aad bay u mahadsan yihiin. si kastaba ahaatee waxaa nagu soo foodlay munaasabadda ciidda iyadoo ay jiraan dadweyne aan awoodin in ubadkooda dharka ciidda iyo farxadda ay la qaybsadaan. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. waxaa la diyaara Maxamuud Mascade oo Minneapolis ku sugan. Maxamuud haye. aad baad u mahadsan tahay. haddii aan ku bilaabo ciyaaraha kubadda kolayga NBA-da Mareykanka, habeenkii xalay ahaa ayaa la soo gabagabeeyey oo kulankii ugu dambeeyey la ciyaaray kadib markii guriga kooxda Cleveland Cavaliers looga adkaaday kulankii afaraad ee ciyaaraha kama dambaysta NBA-da, waxaana kooxda kubadda kolayga ee Golden State ay ku guuleysatay koobka kubadda kolayga ee NBA-da Mareykanka. 4 kulan oo xiriir ah ayayna ka badisay kooxda Cleveland Cavaliers. ciyaaryahanka la yiraahdo Kevin Durant ayaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii ciyaarta kama dambaysta heer la ciyaarayay oo waxaa la siiyey abaalmarinta loo yaqaano MVP-da. sidoo kale ciyaarta kadib ciyaaryahan LeBron James oo warbaahinta Mareykanku ay in dhaweydba ku mashquulsanaayeen halka uu qaban doono marka uu soo gabagaboobo koobkani ayaan ilaa hadda shaacin in uu kooxdiisa ka tagayo amaba uu koox kale ku biirayo. hase ahaatee wuxuu warbaahinta uga yaabsaday in uu sheegay in 3 kulan ee ugu dambeysay ciyaaraha kama dambaysta NBA-da uu dhaawac dhinaca gacanta ah ka soo gaaray ku ciyaarayay. si kastoo ay noqotaba kooxda kubadda kolayga ee Golden State Warriors ayaa 4 sano ugu dambeysay ciyaaraha kama dambaysta NBA-da timid, waxa ayna ku guuleysatay 4 jeer ay timid 3 ka mid ah. dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagta haddii aan ajaleecana xulka qaranka ee Jarmalka ayaa habeenkii xalay ahaa ciyaar xiiso badan oo la ciyaaray wadanka Sacuudi Arabiya, waxa uu kaga badiyay 2 gool iyo 1, waxaana xulka qaranka ee Sacuudi Arabiya iska qasaariyeen gool rigoor ah oo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta loo dhigay. waxaase xusid mudan ciyaaryahanka la yiraahdo Gundogan oo isagu u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City isla markaasina kamid ahaa ciyaaryahano Jarmal ah oo dhawaantan madaxweynaha Turkiga la kulmay in markasta uu kubadda taabtaba lagu orinay. waxaa dadka Jarmalku ilaa hadda ka careysan yihiin
ciyaaryahankaasi kulankii uu la yeeshay madaxweynaha wadanka turkiga. tababaraha xulka qaranka Jarmalka Laab oo isagu la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ku tilmaamay taageerayaashii ciyaaryahankaasi ku oriyay inaanay wax wanaagsan u samaynin Jarmalka, isla markaasina loo baahan yahay ciyaaryahanka in la xushmeeyo maadaama uu yahay nin Jarmal isla markaasina mabaadi'da Jarmalka aaminsan. ugu dambeyntiina wadamada Mareykanka iyo Faransiiska ayaa kulan saaxiibtinimo ku ciyaari doona guriga Faransiiska. Faransiisku waxa uu ka mid yahay wadamada sanadkan u soo gudbay koobka kubadda cagta adduunka oo 14 bishan wadanka Ruushka ka furmaya, halka Mareykankuna koobkaasi uu ka haray. aad baad u mahadsantahay Maxamuud. adiga mudan. barnaamijkii qubanaha maantana waa naga intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.